الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحنا هاي عاشم محمود علي وحنا هاي هوية سوماليات وحنا سمينا أنا جاي قبل كلام مسلمين ما أركتي كلش أو عرورت مساكين تي أقون تلقو برباريو أو وحبرشة لقو دقو محايا ما أركت سومالي وحاكد على دجال بدن وحاكد عندي باتوين بدن وارد بدن أيا حتى قتليون كوايين waxbarasho ku geeyaan iska badaawarkoodii cunadii ay la dagaalamaan sidaas aawadeed in ilaahay wuxuuna garadsiiyay marka inaan ma aragtay aan sameeyno college ku yaalo degmada Daynile ee ku taalo ka tirsan degmada Hodan ee Xamar ka tirsan marka college ayaan sameeynay waxaan iibinay 4 boos oo isku xiran waxaan ka sameeynay ma sha Allah masaajid weyn ayaan ka sameeynay dugsi weyn ay leedahay barxad weyn oo lagu ciyaaray leedahay insha Allah duu Allah idmo waxaan soo gudbin doonaa sawiradii iyo waxaan soo gudbin doonaa mataqaana caruurtii iyo ayagoo qadeynayaan waxyaabo badan aan soo gudbin doonaa hadoo Allah idmo marka waxaan sameeynay marka meeshaas caruurtaas waxa timaado 77 caruur ayaa timaado 77 caruurta ah 38 waa wiilal 32 iyo 35 meelahaasna waxa waaye waa gabdho waaye marka gabdhahaas iyo wiilashaas waxaan u sameeynaa ciidii hore ma sha Allah dhar ciid aan u gadnay dharkii ciida aan u gadnayna ma aragtay waa alxamdulillah way ku farxeen aad waxaan u sameeynaa ma aragtay inay caruurta aan tartansiino quraan ku tartansiino xisaabta ku tartansiino waxaan jirtoon haynaa caruur ان الف بيتا او ان uga bilaabnay ba taada meesha looga bilaabay caruur alif waxmaale ba hoos kale meesha looga bilaabay alxamdulillah ilaahu noo guuleeyay 2 sano meesha furan tahay 2000 waxaan furnay 17kii maantana waa 19kii 2 sano iyo bare ku sii socotaa marka ilmaha meeshay hadii aan ka warano caruurtaas waxay soo galaan hal saac markay tahay ayay imaadaan ugu dambeyn hal saac bar markay yimaadaan waan xaadirinaa waan yeerinaa si aan u ogaano cunugii jirsan cunugii maqan cunugii soo daahay kabacdi waxaan sameeynaa hadii oo Allah idmo saf dheer ayaan galinaa ducooyin ay akhriyaan natiijooyin ay akhriyaan wax waliba ay sameeyaan markaas kabacdi waxay galaan fasaladooda galaan waxaa noo joogta laba macallin noo joogto maamo Faadimo iyo waxaa noo joogta macallin Maxamed waxaa noo joogta gabadh cunada iyo nadaafada ku shaqale waxaan haysanaa musqulo 6 musqulood aan haysanaa caruurta markay isticmaalaan meeshaas waa nadiifinaa nadaafada ayaan general ku dadaalnaa waxaa jirta meel hool weyn ay ku qadeeyaan jirto waxaan haysanaa ma artay solar light maadaama korontadii nalkeedii aad noogu batay solaran soo iibinay si nalka iyo ma artay loogu suubiyo waxaa jirto keenna harqaano dharka aan ugu talno maadaama ilmuhu dharku ay qaar ka jeexmayaan qaar waa u iibinaa maadaama intaan qaadno harqaan aan geeyna dib nagu noqotay haddana waxaan sameeynaa in anaga harqaan soo gadanay dharka ugu tolnaa duruucda ugu tolnaa xijaabyada ugu tolnaa dharka wiilasha waa u tolnaa wixii markaas u baahan kab ahna waan ka caawinaa waxa kale oo jira furniture weyn ah jiraan ugu shubna hilibka lama cuni karo cunto aan hilib lahayn waxba aan lahayn lama cuni karo waan sameeynaa neefafka geela markay tahay waa u tagnaa nimankaas waa ka soo gadanaa intaas soo ma arta kiilaad ah furniture-kan ku shubnaa alxamdulillah waxaa jirta barkad weyn biyo noogu jirto biyahaas ay isticmaalaan weysada ka isticmaalaan ilmihii marka subaxdii markay soo galaan quraanka la baraa quraankay qaataan subaxay galaan subax markay ka soo baxaan haddana waxay galaan ma aragtay in dareeriska caadiga ay aqrinayaan dareeriska caadiga markay ka soo baxaan 12 barkii salaada la adimaa masaajidka mikrofon weyn uu leeyahay aan u soo iibinay marka way ku adimaan markay adimaan ka bacdi haddana ma aragtay way qadeeyaan tukadaan way qadeeyaan markii ay qadeeyaan way farxashaan wax kasta ay suubiyaan bacdeen waxaan ku soo celinaa dugsigii ku soo celinaa oo waxaan gelinaa meesha qaybta kale taan geynaa si loo baro xisaabta Soomaaliga af Soomaaliga ma sha Allah hadeertan waxaan ku dhahay wax alla waxa tiraadid way qorayaan awalna min iyo nuunka wax ay garanayaan ma jirto waa ilmo masaakiina waa ilmo buur ah agoona ku jirto danyara ku jirto marka waxa waaye hadii aan la isku tashanin oo maarta la isku waxayn waxa horumar lama gaarayo dawladeena maanta wali waa daciif waa dad maarta Soomaaliya aan haysanin dawlad maanta ka faal qaadi karto ma sha Allah inkastay sameeyeen ma aragtay military-ga iyo agoonta iyo meel ay dawladaha furan laakiin haddana shacabka ka badan baahida marka sidaas aawadeed meeshaas ay ku jiraan in shanta cashay yimaadaan ma aragtay hadeertaan insha Allah uniform aan u sameeynaa aan u tolnaa marka uniformkaas waxaan rabnaa inaan ma aragtay ay noqdaan ayagoo hadda comedy sameynayaan oo ma aragtay quraanka ka baxayaan oo tafsiir sameynayaan ayaan insha Allah soo gelinayaa ana soo arkayaa hadda tan waxa waa kulay anagu ma dhahayno maxay ahayd maanta baahida badatay qolo waliba hana la saacido marka alxamdulillah anagu waan dhaqanaa hadeertaan laakiin waa dad markastaba ma aragtay hadii la kari karo maartay riixman u baahan laakiin hadda anagu waxa waaye ma hana riixa iyo hana la siiyo iyo wali ma artay anaga nagama imaanin laakiin haddana duruuftu way iska jirtaa
alxamdulilah marka insha allah videoga xigo ayaan idiin soo bandhigi doonaa caruurtii quraanka akhrinayso caruurtii oo joogto waxaan idiin soo dhigi doonaa sawiradoodii waxaan idiin soo wada dhigan waxaan rabaa inaad ku farxadiin oo happy aan noqotay sida aniga happy aan u ahay waxa waaye ma aragtay anaga juhdi aan gelino lacag aan gelino inta waa garan kartaa shaqaale lacag ka rabo macalinka ka rabo cunadii dhamaanayso intaas 75 caruur wax loo karinayo ma mareekad inta qarash ku baxay laakiin wixii fi sabilillah loo bixinayo ilaahay ma dayacayo ilaahay baan ugu filan insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa intii codkayga maqashaa in agoontaas ayna moogaanin ee degmada Daynila joogto ku xareysan kuleeshka agoonta ee Madiina Munawwara